أنا الدولة أنا درجة وحن دون فالي كدكتونو ضبه لاقي نقطة دولمي دورو دولمي ديدا أنا رجلي دولمي ديدو دولمي دوني سنغن سفر آدو سفر ديدان أرقنا سفر آدو سفر ديد هاي سنغن دولمي دورو دولمي ديدا أنا رجلي دولمي ديدو دولمي دوني سنغن Erebor furu, erebor heran aragne. Erebor furu, erebor here isku noqon. Warmaanta heesii qarameed qaadaysaan ma waddankaani kula qabsaday war sheikh shariif i'tiraaf looma diidine kismaayaa loo diiday Sheikh safarow, sheikh diidan aragne. Sheikh safarow, sheikh diid hay isku noqon. warnimaya war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya oo labadii maalmood ee la soo dhaafay qayladu ka daba yeeraysay waxa la guddoonsiiyey bilada sanadlaha ee hogaaminta suuban loo yaqaano konkaraadiya war khudbada meela ka agriyaysan la haytan asharkuna kiin dhiibni hakabaho basahay iyo galad ay bilay haytay war madaxweynuhu warkaaga waxba kama fahminay dhigayso biladaas waxa kale oo la guddoonsiiyey Abiy Ahmed iyo siyaasi farweeke waxaana loo aqoonsaday saddexda hogaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kala xabadiga ma galine madaxweynaha yow farmaajo bilan naga guddoon labadii madaxweyne ee ka horeysay waa la yaabatay shalay dhigeen marka qaylidoodii ma bilada ay keentay markay xilka hayeen cusbu waa qayli jire mugooda ha qaylshaan ama kii qaylin lahayn maxay namudayin warnimada waxaa la yidhi nin baa hadda kahor ceel ku dhacay markaasuu geed allan oo dhinaciisa ku yaalla qabsaday markaasuu wuxuu yidhi allankow magan marka shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afhayeennadii dawladda iyo dadkii hadli jiray qof yidhaa waa la waayey marka dawladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesowe magan gashay jeesowe magan aa ka dhacday isaguna markaasuu inta ballaarsaday oo idaacad kasta wacay oo yidhi xildhibaanna shirayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dawladdu ku xayirtay jubbaland warlanka hebaabsaday gaylada hebaabsaday daahir amiin jeesow jilays mahayna gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan soronsor usiina ma eray shariifka raaligelinka biyoy oo balajaasnaadka dari oo balajaasnaadka biyoy gefkusan gefi koonfur galbeed baa bakol shireedii ah koobi ki waan runtiisada maandhow salaad cali jeelaad ilowday wuxuu yidhi madaxweynayaashu sharciga ha raacaano war horta waaba yaabe jidka xirasho mooye miyaan xeelad kala jirin waree dhammaantoo dhan waxaad la qaylinaysaan soo dawladoo jidadkii dhulka intay horay u xidhay jidadkii hawadana ku dartay uun maaha waryaaleen Soomaaliland mar hore isku daydeen inay cunaqabataysaan daimika haddaa idinkiis cunaqabataynaysaan annagu waa ku faraxsannahay war faysal cali walaa wuxuu yidhi Soomaaliya waxaa u soo baxay siyaad baroko dajira no wada heedha faysal cali walaa waxa ma ogey 70 jir maxamed siyaad barra hargeysa xukuma shalayna sheekh maxamed idriis buu magaalada hargeysa iyo Soomaaliland oo dhanba ka masaafuriyay war sheikh madaxweyne noqday iyo sheikh caadi isku mid maana labada sheikh kala saar maandheeyo sheikh shariif hadii hawada laga xiray ma badda iska maaro war ma hayside caleemasaarka axmed madow waxa badda u qayb galay waa dani horta kaale kismaayo hadii u naqabatayn la saaray axmed madow mu caleemasaarkiisa cadaada ku qabsado ilaa cadaadu ku soo koray war ma haysaane madaxweyne sheikh shariif maanta afku fur war sheikh shariif weligii dawlad ma dhaliiline sidee wax u jiraan warnamiya wal mooshidiin dhajiho bilita taabada hunjufa bilaawe warka aadan isaaqaan idin fasire wuxuu idin yiri dheriga kulaylka karka ka keena war hanugu soo xoominina warka naga suga sheikh shariif wuxuu yiri farmaajo soo boorsadiisa iyo suud wata ayuu dalka yimid qayrana sidoo kale waxaan tiile kama gelin dalka annaga dhismaha dawladnimada naf iyo maal aan nooga baxay hantiyaan gelinay dad badan oo qaali aan ku weynay mana ogolaanayno in si fudud loo burburiyo halka ay marsiinayaan ha joojiyeen war sheikh shariif hadalkiisa maadan dhageysane stop halka aad marsiinaysaan ku joojiya Soomaalina isku timaad ayuu yiri war sheikh shariif waa kan la nimankan ayaga suulay garoon ka soo degeen markay garoon ka soo degayeen muxuu ugu celin way maanta lama celin lahayn war sheikh shariif ma diid naf imaala giliini usileeye horta maal meelisnin yaaloy naf ma aha iyo bireedjay may bagiliyeen daray soo baawi may meega nafeek ka baabadi war xisbiga hadda sheekay nabadda iyo horumarka waxay dhaheen waxaan ku baaqaynaa shir degdeg ah oo isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda si aan xaalad jirto wada tashanno shacabkan waxaan ugu baaqaynaa bay yiraahdeen inay taageeraan dadaalada lagu ilaalinayo dimuqraadiyadda curdunka war ma haysida Xasan sheikh la hadlay wuxuu
wuxuuna yidhi soo wareejinta hawada dhib badan baa laga soo maray maanta markay dawladda gacanta u soo gashay inay sidii hubkii ku dagaalantaa waa qalad war waxaan la yaabanahay oon fahmi waaye saamilayda siyaasaddu yaa waayo yaase saamiga siiyey ma bulshada soomaaliyeed mustaqbalkeeda dhowr qofood ka tashanaysaa war waxaydii dhigu maraaye 4.5 war xasan sheekh shariif waxaan dhihi lahaa hal sanaa soo horay diyaaraa sheegaysiin guriga inay dhigaar ku gulaysiin ee isdejiye baraadarkay sanad kadib nabad iyo nolol inay tush dhahaan ayaa qawaaf laga qabaa xariifow ma kaa qaadanin camalaa ka weynno waaba la yaabanahay waddankan dadkii iska lahay halkay jiraan ayay adaa ka haray warnimayow saddexdii madaxweyne ee jubbaland laba ka mid ah shir jaleed isla qabatay waxayna dhaheen sheekh shariif inuu kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiya kismaayo way ku habbooneed bay yidhaahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweynea ayuu wuxuu doonayay inuu mid u markhaati furo war weligay ma arkin laba madaxweyne oo shir jiraad isla qabanayo hal magaalo isla joogo war anugu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bug tahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen ayagoo laba madaxweyne sheeganaya war aniga xidigaaba iga yaabshay wuxuu yidhi sheekh shariif waxaan u sheegayaa kismaayo wax doorasho ah kama dhicin mugga waa yaabe asiga soo madaxweyne ku noqda haddaan doorasho ka dhicin bari afaaraha hidig gareenka ba war ma haysaane xildhibaan fiqi banaabaxyuu ku baaqay marka waxaan la yaabay dadka meesha ay u turi yihiin war sheekh shariif wuxuu yidhi dawladdu waxay ku mashquulsay inay kismaayo dadka ka celiso ciidankii soomaaliyeed shalay la xasuuqana juugka ma aysan dhihin war sidaas maana nin weyn jabkiisa waa qarsadaa war dawladdu waa curdun waana yar tahay laba furimoodna hal mar kama wada dagaalami kartee hadda midda maamul goboleedyada ku furana midda shabaab dib uga dhig war ma haysiine madaxweyne farmaajo wuxuu maraykanka uga qayb galay kulan looga hadlay arrimaha diinta oo Trump uu shir gudoomiyey a'uudu billaahi min ash-shaytaani rajiim ma Trump baa diin hogaamiyey oo aan bara diimil ka arimay diimo badan yihiin dadko dhagaha aabudaa ka jiraan anu waxaan la yaabanahay diimaha Trump shir gudoomiyey diinta fircoonka kooka ba ogo Trump waxa loo yaabaa muku diinta iyo faragasto 29 sano kadib waa markii uu horeysay ee madaxweyne Soomaaliyeed la gudoonsiiyo bilad caalami ah taasoo uu ku mutaysto hogaamintiisa wanaagsan ra'iisul wasaare taara ku xigtay bilad maamul goboleedyada qaramada ma ogsiin rabtay wariyaha ra'iisul wasaare khayre hawsha uu ka qabtay galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeednimo ka daraaso war awowgii la gub kismaayo ra'iisul wasaaraha waa laga taageeray warnimada waxaan idin weydiinayaa ma taqaaniin wasiirka raaligelinta iyo saxafinta ee xukuumadda Soomaaliya wiilasheeni aan ahayna afiki araya warnimada waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadoonka dawladda bas wadaha dawladda ka wahe war wasiirad qadiijo waa gabarna madasha war yaa maanta nabadiidna marka war wasiirka amniga imaam nabadoon ugaas islaaw ducaale wuxuu yiri waxa gurigayga igu soo booqday duubka dhaqanka sida imaam maxamed yuusuf ugaas maxamuud cali boqor cabdullaahi geedi nabadoon muxudiin xasan waxaana kulanka igu weeliyey wasiir cismaan daallo gudoomiye cumar filish xildhibaan carabow xildhibaan xuseen caraale dawladnimo ayaana deeqdo yiri war wasiirka waa lagu kalsoon waa ognahay ragii nabad inoo la ka tirsanaa ma dhameys salaada cali jeele cali geedi sheekh cali wajiis xagee ka baxeen war raggaasi meel ma fadhiyaan shaqada dhinac kale ka wada war muuse suudiye cabdi xaashi ayaga odayaal ma arrinta safar geliyaan baraadarkay jawaari mar roo baxay war waxaa la yidhi dawladnimo ma damac baa orod iyo dadaal iyo degdeg iyo fudayd iyo jacayl iyo madooq baa durduro geel baa ku jabaye damacuna waa xun yahaye dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war cunaqabateen lama huraan waay war waxaan idin odhan lahaa mas-uulnimadu waa xaal baahida markaas oogan maarayn taqaano uga muhandan maqanteeda u masaafo noqoto kulla yidhi halkaas maamul lama odhan ka meermeere kumintid ayaa la yidhi marka dawladdu inay maamulkeeda ku mintidta maxaa loo diidayaa shacabku inuu xorriyadiisa ku mintida maxaa loo diidayaa war lan welba inoo minjayka mintida aynanan diidnay maandheeskow mintid khaldana la diidaya wariyaha mucaaradaatiin qayladiinna waa maqlay maanta oo dhan dalka dawladda ka mas-uula amarkay soo saartana waa in la qaataa war ma haysaana meelaha iska qaylinaysaana dawladdii mushaaraadkii Facebook ay bixisay waana la yaabay tan dhacday war horta aniga mushaar la bixiyey waxaan ku ogaaday wariyaal la dhaxad ahaan jiray ayaa hadda dhinac u batay waxaan arkay dul yaroo dhahaya dawladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan odhan loo dhihi
dul yar dulmi kama dhammaado dudunina ciidi kama dhammaado nimayo anuu dunida fool buugga weligay ma geline adinku idiin furanaya saaxiibayaal waxay tuura baraada gabay taageeraa soo tuurankaa qornay fafaniga ku soo gaaray hariifa uquudkan laba nac isku xiji dheer noo si loo fahmo oryaaleen annagu dawladda nabad iyo nolol facebookan kala socon jirnay dee facebookina xalay waa looga adkaado dhallinyaradii facebooka ka yeeshatay qanindumis baa tahay in la ruqseeyaan u malaynayaa war adeer wax walba qandaraaskooda dhammaaday nimanka war sidaa ma ahee duqbuluqa oo odagii facebook ka odhan jiray qarandumis baad tahay qabyaaladiistaad tahay dowladdii bulad buruufka ku qaaday facebook kama maaranto war dawladdan waxay facebooka ka aragtay si degdeg ay ugu jawaabtaa warna miya weji buugan aftiis afgoy walaayo hegaaska ee leeflahanka gala koray su'aalaha adeerow axmed deerow in yaroo ku idhaahdo cid kastoo is ogaata awooddeeda iyo xooggu aad inuu u sarreeyo afar qaadle bilowdo ayar isaga ilowda tii alle aragtaa allaaweyn ninkii aamina abuud leh ummad weliba ayaheeda inay garato iyadaa leh waan ognahay war somalilan ayaheeda iyadaa ka tashanaysa cid ay kala tashanaysana ma laha war kaalay goormuu qowdhan kugu neefsaday ninka duulaya kismaayo doonaya waa inaad xamar martahay war waxaa la yidhi qof kastoo dhibka geysta misna aan ka garaabin gidaarkuu ku tagaa gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba lagu guurihaaye waryaalehen gudhuyey annaga markuu sheekh maxamed idriis warkiisa nagu batay waan iska mustaafirinay markaa wixii warkoodu idinku bato miyaa iska mustaafirsaan waryaa warkaada warka dibaddu ahay maxaad warkaan u soo dhex gelinaysaa xayad ku qaadano halkaa waaye war wixii waalan ii keena anaa daweynaye ii keena wixii waalan digtoona dawladdu ma arag oyto maaka deersiyo war naga taga balaya idinka waad wala diina iima anaa idin daaweynaya